السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي aad baad ii salaamay saaxiibayaal. Maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo sadaqada iyo wax bixinta. Qofka saameynta ku leedahay iyo marka laga yimaado gudihiisa wuxuu dareemayo dad waxyaabaha ay fududayso. Muddo laga joogo imika laga joogo ilaa 5 sano meelahaas ka hor anoo shaqo raadinaya muddo sanadan shaqo raadinaya maalmaha kamid ah marka anoo wadada dhinaca fadhiyo oo markaa shaqooyin badan intaan soo xareeyay waraaqo iyo wax sita ayaa wadada dhinaceeda fadhiyo oo shaahi markaa la keenay wax cabiyo ayaa inaan iyo ma yara suuqta soo mareen wax si weyn marka kadibna waxaan sameeyay waxay horta abaar biyo taag marka abaar markay taagnay ayaa ana oo intaas ku maqanahay oo aan leeyahay oo heed wadi waxyaabo badan raadinayay ilaahay waa intaas ugu naxariistay inaan tan iska sii sadaqasi oo runtii horta waan bixin jiray laakiin maalinkaasi gaar ayaan soo dhaweeyay waayo culays badan baa dareemayo ganacsiga shaqadaas leedahay kadibna inantii baa adigu wax $5 $6 meelahaas ajiibkay ku jiray inantii baa lacagtii shaaha mooyaane intii kale la siiyay igama dambaysatay laakiin de wax haddaan meelaha ama ganacsiga iska heli doono oo rajaan qaba marka adigu lacagtii baan siiyey abaar baa shaahi iska bayadigu meesha iska fadhiyo waxyaabo badan iska fikriyo oo iska ganacsata qof shaqo raadisa waxyaabo badan ku fikriya anoo bartii fadhiya ayaa la soo waday ama basoo ay soo inaan shaqadii hebleed soo ma soo apply kareen oo ninkaas samti ha okay way hay'adii oo email ba ku soo dirnay dawaanaha ku soo wacnay marka shortlist ba ku soo baxday insha Allah hadii aan interview inaan kula yeelay processkii ka horeeyay Allah musta'aan inaan kula yeelano marka demal xibla inuu noo timaado doonina saas aha way waxay guriga iska tagay wallahi aad aan faraxsan shaqadii adu almuhi ninkii ku soo baxay anigu hal boos buu ahaa booskii aniga helay muddo badan baan de xogaa adu dhowr sano ma kasii shaqeeyay marka waxaan uga socdaa hadaa doonaysid inaad wax weyn hesho wax weyn la bax wax weyn hadaa doonaysid inaad hesho wax weyn baa la bax